waxaan hadda noo soo gabagaboobay shirkii amniga caasimadda oo aan habeen walba ku yeelano xaruntan qaybta guud ee booliiska. waxaa la socotaan maanta in dhacdo saakay isniin ah 8 July 8 bishii July 2019 in gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo kooxaha argagixisadu ugu talagaleen inay shacabka Soomaaliyeed ku gumaadaan in uu isku dayay in jid la xiray inuu si xoog ah kusoo gudbo. waxaan aad iyo aad rabaa inaan halka uga mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed oo feejignaan weyn muujiyey, soo gudbiyey, isla markaana booliiskii mar allaale markii la soo wargeliyeen isla booliiska isla markiiba ka howlgalay, isla markaana shacabkii iyo goobtii laga fogeeyey, gaarigiina tuhunkii laga qabayna runtii ay noqotay tuhun dhab ah oo waxlaha qarxana halkaas goobtaas ku qarxay. darawalkii ama qofkii shabaabka ahaa ee rabay inuu ummadda halaagana uu isaga halkaas kula qarxay. tan waxayna tusaysaa sida geesiyaasha hay-adaha amniga iyo shacabkaba ay runtii feejignaanta dheeriga ay ka wadaan sugidda amniga caasimadda, isla markaana ayna tusayso sida kooxaha arxanlaawayaasha ay u doonayaan inay shacabkii u gumaadaan. marka waxaan rabaa inaan halkan si gaara uga mahadceliyo ciidamada booliiska iyo shacabka wargelinta maanta soo gudbiyey. intaas ka sokow kuma ekeen keliya gaariga qarxa. dhagarqabayaashu waxay damacsanayeen waxay ahayd in kooxo maleeshiyaad hubaysanna oo kooxda argagixisada ah inay ayagana falkaas markuu dhaco kadib ama goobtii loogu talagalay ee halkaas weerar kale ka geystaan. iyadana waxaa nasiib wanaag ah isla maanta in 8 July iyadana falkaas isaga laga hortegay, labadii argagixisadana halkaas lagu dilay oo laga hortegay inay khasaara shacabka u geystaan. waxaad kaloo la socotaan in ay ahayd 30 Maarso 3 bilood iyo muddo 10 casho ah markii aan shacabka la wadaagay in istiraatiijiyaddii amniga caasimadda aan isbeddel ku sameynay, howlgallo joogto ahna ay ciidamadu samayn doonaan, in aan maamuladii degmooyinka iyo shacabkii iyo hay-adihii amniga qorshe u sameynay, laysku xirmay muddada 3 bilood iyo 10 cashana aad arkayseen sida magaalada amnigeedii u soo hagaagay. waxaan rabaa inaan iyadana si gaar uga mahadceliyo hay-adaha amniga iyo shacabka oo la-aantood aysa suurtagal noqoteen. annagana intaas waxaa naga go-an waxay ahayd inaan habeen walbo shir amni isugu nimaadno, diyaarinay tiim sameeya kormeer joogto ah sida u howlgalaan ciidamada, sida shacabka iyo ciidamada isula howlgalaan, sida barnaamijka dariseynta u socdo. waa la socoteen waxaan wadnay ololayaal kale oo barbar socday oo bulshada wacyigelinteeda iyo in ay bulshadu kaalin weyn ka qaadato. intaas waxaa si barbar socday in taleefanka 991 uu aad u shaqaynayay, shacabkana ay kalsooni buuxda siiyeen ciidamada booliiska, warbixino badan ay keeneenna suuro gashay in lagu soo qabto dad fara badan oo kooxaha argixisada oo maaganaa inay shacabka u geystaan dhibaatooyin. waxaa kaloo intaas sii dheeraa in mootooyin ama ha noqoto kuwan bajaajka ama kuwo kaleba oo kooxo rabay inay burcad ku sameeyaan shacabkana ayagana lagu soo qabtay oo ayagana ay ku socoto baaris. mas-uuliyiinta staafkooda ee magaaladan maraya in ay mamnuuc tahay in dharkan ciidanka xoogga dalka inay ku dhex maraan magaalada. ciddii ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee magaalada shaqo ama ku maraysana goobaha ciidanka booliisku ay taagan yihiin inay si asluubi ku jirto, nidaam ku jiro ay ula hadlaan, isu sheegaan. haddii kale waad aragteen kooxaha argixisadu dharkaas tuutaha ayay soo wada qaateen oo kusoo dhex dhuuntaan. marka si aan uga feejignaano waxaan codsanaynaa mas-uuliyiinta staafkoodu inay mas-uul ka noqdaan. midda kale oon rabno inaan digniin u jeedino waxay tahay, ma leedahay bajaaj, ma leedahay gaadiid, haddii uusan gaadiidkaaga diiwaan gashaneen
haddii aad gaadiidkaaga diiwaan gashatay laakiin aad qofka iibisay magacaaga weli ku qoran yahay mas-uuliyadda adaa qaaday adaa mas-uul ka ah gaadiidkaas iyo wixii dhib ah uu geysto si haddaba taas looga hortago bajaajleydu iyo baabuurta kaleba waxaan leenahay isdiiwaangeliya ma leedahay bajaajka isdiiwaangeli haddaadan isdiiwaangelin muwaadin dhab ah soomaali aadan noqon canshuurta lagugu leeyahay aadan bixin haddii waxay noqonaya qof u adeegaya cadowga ummadda soomaaliyeed waxay leedahay hal cadow halkaas cadowna wuxuu yahay kooxaha argixisada al-shabaab ayagana inaan hal meel uga soo wada jeesanno oo aan la dagaalno ayuu qorshaheenu yahay waxaan rabaa inaan muxuu ahaa kasii wada shaqeyno waxaan aad iyo aad marka lagu mahad celinayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka caasimadda oo muddadii maalmihii xorriyaddana muujiyey muwaadinnimada wadaninimada adkaysi muujiyey amnigiina qayb ka qaatay haddana inta dhimanay sii wadaan